ردي بشدك وبشدد عدوي لك ترك قبشدد عم بكر لما يسور منك أنقذي إلا عود درستين لا يسيح الرمو وقفا غدين عدي قالها أكتوبر أدارا أنيو طبيب ليك نعيين يحيو دلينيو دعك آسيدين انت يدا عفاي الباب وفركي وشيل لأوه ويرما انتي عالمي يدوه وقاسك علي قالا أكتوبر أدارها أبوان عبدي بشير إندبور وحاو كمدها الأبوركي وليبا أبواندي فنك سوماليدا كوود ugu caansan kamid ahaa hormuudkii weliba tiirarkii uu ku taagnaa fanka Soomaalida Cabdi Bashir waxa uu ahaa korneel ka tirsan ciidanka booliiska Soomaaliyeed waxa uu kamid ahaa abwaankoodana ahaa kooxdii heegan ee ciidanka booliiska Soomaaliyeed waxa uu kala u ahaa gudoomiyaha kooxda iyo weliba hormuudkeeda intaba Cabdi Bashir suugaantiisa inta badan wadaniga iyo weliba kuwa kale waxa ay ahaayeen kuwa qof kasto Soomaali uu jecel yahay falsafad iyo xikmad aad u weyn ay ka muuqato Cabdi Bashir suugaantiisa iyo hal abuurkiisa waxa ay la kacantay kacaankii towradii 21 Oktoobar waxa uu kow ka ahaa abwaanadii kacaanka ayiday waliba heesihiisa iyo suugaantiisa ay ahaayeen kuwii kacaanka ugu badnaa ilaa iminkana dadka Soomaaliyeed ay ugu jecel yihiin Cabdi Bashir tusaalooyinkii waliba tilmaamihii kacaanka waa uu hirgeliyay isagoo waliba hanuunintii dadweynaha ee hanti wadaagga kacaanka Soomaaliyeed qayb libaax leh ka qaatay heesihiisu waxay ahaayeen kuwii kacaanka bari taaray waxayna ayideen mabaadi'diisa aad waxay u amaaneen kacaanka iyo waliba hogaamiyahoodii Jaalle Maxamed Siyaad Cabdi Bashir waxa uu ahaa mid aan kala gamban aaminsanaanta وآمنسان يا مبادئ كعانك سيدا واجب ديني أو كلام محمد سيادي عبد بشير وحي أهايان صاحبة آدي سوغلو وأوجعلا سوغو وليبا أبوانا ذا كلامك ولهد ليو تسالو أسوق آذنا يا عبد بشير أو كلا إني نغضان آمنان مبادئ كعانك كخيب قاتاني رجلين تسالوين كيسة إيو وليبا هنونين تدوينها هسي كعانك وكلي عبد بشير موسى أسمينين heesihii wadaniga ahaa ee dagaalkii 77 ilaa kala Ethiopia dadka fanka Soomaalida ka faaloodana waxa ay tilmaamaan in suugaantiisu ay ahayd falsafad iyo cabqarnimo mid ay ku dheehan tahay heesihiisii Cabdi Bashir kacaanka kuwii wadaniga ahaa iyo kuwii kalaba ee dabacsanaa intaba iyo koon kala dhicin ayaa haddana heesta Oktoobar ay adaa lahaa haddii aad dhageysatid ama aad dhuuxdo waxaad ogaanaysaa in loo sameeyay si cabqarnimo iyo falsafad ku dheehan tahay habka ay u samaysan tahay heesta erayada sida ay isugu siman yihiin qaafiyada iyo waliba qalfoofka heestaba intaba dadka fanka Soomaaliyeed ka faalooda ama falanqeeya iyo waliba kuwa kale ee naqdiya waxay tilmaameen hees la mid ah heestaasi in fanka Soomaaliyeed abidkad laga sameeynin qof kasto dhageysta ama dhuuxana waa uu ogaanayaa habka heesta u samaysan tahay qaafiyadeeda sida ay tahay mid ilaa hadda iyada oo kala ah suugaanta Soomaaliyeed laga dhaxilin الباب وفركي وشيل لأوه ويرما انتي عالمي يدوه وقاسك علي قالا
markuu aqoonideen aafada bugtiyo eelka merideen edageeda dheere kugu haayideen Octobare adigala Octobare adigala haddaba markii jabhaduhu ay kaceen taliskii rajiimkii maxamed siyaadna lagu kacay cabdi bashiir waxa uu si hoose u aaminsanaa jabhadeynta isagoo ogaaday kacaankii rajiimka cadaalad xumada qof jecleysiga nin tooxsiga iyo waliba qabyaalada inay astaan u ahayd haddaba jabhadihii markay magaalada muqdisho soo galeen taliskii rajiimkii maxamed siyaadna u yaaba nafta ayaa ciidamadii u badnaa beesha uu maxamed siyaad ka soo jeedo ee Mariixaan waxay Siyooni iyo Fintuuna October inta u dhaxaysa waxa ay ku dileen abaankii weynaa Cabdi Bashiir isagoo wata baabuur Fiat 32 ah badan oo Soomaaliya waxay tilmaamayaan in maxamed siyaad uu ogaa dilkii loo geystay Cabdi Bashiir ciidamadii u badnaa beesha Mariixaan ee maxamed siyaad uu ka soo jeedo ay u dileen maxamed siyaad jawaabtiisu waxa ay ahayd afkii shalay uu igu amaanay iguma caynayo isagoo ogaa hirgelintiisii suugaantiisii ammaanta u badneed ee kacaanka iyo tii shakhsiyadeedba intay la ekeed awoodda ay lahayd ayuu maxamed siyaad wuxuu ka baqayay inuu ku sii digto walibana suugaan digasho ah iyo ceebaha maxamed siyaad iyo fadeexadihiisa tilmaamaya inuu sameeyo markuu isaga huleelo rajiimka magaalada haddaba meeshaasi waxaa kaaga cad leys daawade oo aad ka ogaanaysaa kacaanku dulmi iyo kibir u dilayay bulshada iyo shacabka Soomaaliyeed kuwa bulshada wax ku oolka u ah walibana hal doorkooda ah Cabdi Bashiir waxa uu dhintay intaas oo kaliya inkastoo dad kale oo fanka Soomaalida ka faalooday ay tilmaamayaan in Cabdi Bashiir loo dilay qabiilka uu ka soo jeedo iyadoo waliba Cabdi Bashiir ka soo jeeday beesha Sacad General Maxamed Faarax Ciidiid oo jabhadii USC hogaaminayay ay isku qabiil ahaayeen labadaasi sida loo dilayba abwaanka dulmi iyo kibir ayaa loo dilay haddaba adigu siday kula tahay dulmiga iyo waliba kibirka ee ciidamadii rajiimkii maxamed siyaad ay u dileen abwaankii weynaa Cabdi Bashiir ma kula tahay Cabdi Bashiir iyo waliba hadalka laga hayo maxamed siyaad ee ahaa afku shalay igu amaanay iguna caynayo intaas aynu ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeena maanta dib dambe intaynu ku kulmi doono barnaamij noocan oo kale ah nabadgelyo